kulanti wanaagsan. waxaan ahay Cabduqaadir Maxamed, soo saaraha barnaamijkan ka waramaya magaalooyinka taariikhiga ah ee Soomaaliya. magaalada Muqdisho ayaa inooga horeysay oo aan ka soo waranay. imikana maanta waxaynu ka warami doonaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna qadiinsan dalka Soomaaliya ee lagu magacaabo Warshiq. intaanan u gudogalin barnaamijka oo dhameystiran, haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay aadna soo booqato, subscribe saaro channelka si aad ula socoto barnaamijyada caynkani oo kala ayaan soo gelin doono. Warshiq waa magaalo ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca gobolka Shabeellada Dhexe, dhinaca waqooyigana kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waa magaalo taariikhi ah dhinaca Islaamka, waana xaruntii hore ee muslimiinta ee koonfurta Soomaaliya. Warshiq waxa ay ka mid ahayd fariisinadii ugu waaweynaa ee saldanadii Muqdisho xilliyadii qarniyada dhexe. magaaladu waxa ay leedahay masaajid duug ah kaas oo magaalada u ah calaamad taariikhi ah ee bulshooyinka dega halkaasi. masaajidkani oo ay ku qoran tahay qoraal lagu xusay dhismihiisa 1278 ama taariikh sanadeedka miilaadiga 1861 oo uu sameeyay Sheekh Abubakar bin Mahzar bin Ahmed Al-Kasri. masaajidka waxa uu leeyahay 3 saf oo kala goys ah, bar galbeed iyo mixraab caleemo lagu naqshadeeyay. waxa kale oo ay leedahay qolal ku lifaaqan qabriga sheekhi dhisay. intii lagu gudo jiray qarniyadii dhexe, Warshiq iyo inta badan dhulka ku xeeran koonfurta Soomaaliya waxa xukumi jiray saldanadii Ajuuraan. magaaladu waxa ay markii dambe hoos tagtay maamulkii imaarada ee Hiraab dabayaaqadii qarnigii 17aad kadib burburkii boqortooyadii Ajuuraan ee xoogga badnayd. imaaradii Hiraab ayaa ahayd dowladda dhaxashay saldanadii Ajuuraan. kuwii ka horeeyay saldanadii Ajuuraan waxa ay hogaankooda ku tilmaameen imaamnimo, taas oo ay markii dambe ay dhaxleen qoys Yacquubi ah ama Hiraab. imaamyada Hiraab waxa ay sameeyeen maamul dhexe intii ay jirtay, sida dhaqanka afka ah ee maxalliga ah. maamulka imaamnimada Hiraab waxa uu ku lug lahaa isbahaysi xoogan oo kooxo isku dhow kuwaas oo ku abtirsanayay qaybaha qabiilka Hiraab. isbahaysigaas ayaa sababay in ay kala irdhowdo boqortooyadii awoodda badnayd ee markaasi ka arriminaysay dalka. isbahaysiga waxa uu ku lug lahaa madaxda ciidanka iyo la taliyayaasha Habargedir iyo Duduble. doorka diimeed waxa iska lahaa Sheeqaal. imaamkuna waxa loo qoondeeyay beesha Abgaal oo la rumaysan yahay inay curad u tahay imaamiyada beelaha Hiraab. imaamnimadu kuma koobneen oo kaliya Hiraab ee waxa ay ku dartay Soomaalida kale sida Hawaadle, Kaale Jecel, Murusade, Surre iyo Banaadiri. markii la aasaasay, imaamku waxa uu xukumi jiray dhulalka ka bilaabma Muqdisho ee gobolka Banaadir ilaa dooxada Shabeelle, ilaa gobolka Galgaduud, ilaa dhulka oomanaha ah ee Mudug oo ay ku jirto dekada qadiimiga ah ee Hobyo. caasimadda ugu weyn ee imaamyada Hiraab waxa ay ahayd Muqdisho. imaamka waxa uu Muqdisho ku qaabilay hogaamiyeyaal ka soo jeeda Zanzibar, taas oo abuureysay xiriir dhow ee diblomaasi iyo dhinacyada ganacsi ee labada dal. Hobyo waxa ay u ahaan jirtay xarun ganacsi oo barwaaqo u ah Hiraab. xarumaha beeraha ee Ceeldheer iyo Xarar Dheere waxa ay ka mid ahaayeen ilaha dhaqaale ee soo saari jiray haruurka, galeyda, digirta oo lagu kabo ama ay weheliso geela, looda iyo ariga, haraga xoolaha iyo diirka. halka kaymaha udgoon iyo sabiibkuna uu ahaa dhoofinta koowaad. sidoo kale waxa uu helin jiray dalagaasi sida bariiska, cuntooyin kale iyo dhar ayaa loo dhoofin jiray wadamada deriska. kuwani waa qaar ka mid ah imaamyadii hogaanka sare. waa ay tiro badnaayeen, laakiin 5 ka mid ah ayaan ku xusay barnaamijkan. 1. imaam Yacquub oo ahaa aasaasihii imaamyadii Hiraab iyo imaamkii ugu horeeyay oo ahaa awowgii la odhan jiray boqortooyadii Yacquubi. 2. imaam Xasan imaam Yacquub. 3. imaam Maxamed imaam Xasan. 4. imaam Maxamuud imaam Xasan. 5.
imaam diimaale imaam xasan. dabayaaqadii qarnigii 20aad warshiq waxaa lagu daray maxmiyadda talyaaniga ee Somaliland. xornimadii kadib 1960kii magaalada waxaa laga dhigay xarunta degmada warshiq ee rasmiga ah imika. عدلي عدولي على برف علي قادو ذي كلني عدلي عدولي على برف علي قادو ذي كلني عدالي ما هضيع علر قلعد ورقادي يعيقو عدالي ما هضيع علر قلعد ورقادي يعيقو وعزو ما مدار على المضي عيارتي شريك إيتما qaybta labaad maanta halkan aan ku soo gabagabeenayaa. maalinta xigta iyo qaybta saddexaad waxaan uga warrami doonaa mid ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ah hoggaanka waqtigaasi jiray ee ka arrimin jiray dalka Soomaaliya. haddii aad xiiseynayso macluumaadyadan taariikheed, subscribe saaro channelka lana wadaag saaxiibadaada. inta ka horeyso nabadgelyo ayaan idinku dhaafay. inta ay carrado barwaaqa rukuna oo cagaar ku simayahay lacabay caanaha labeenta leh biduna faraaday ku ceeshan lacabay caanaha labeenta leh biduna faraaday ku ceeshan oo casuuma yartana calmaday